golaha maanta ka codsanaya in waandaale isii daysaan. golaha guurtida Somaliland ayaa maanta yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn oo taariikhi ah kaas oo lagu soo afmeeray hogaankii 22 sano socday ee gudoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan isla markaana lagu doortay gudoomiye cusub ee hogaamin doona golaha. fadhiga ayaa ku furmay aayado Quraanka Kariimka oo akhriyay Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii la hubiyay tirada mudanayaasha soo xaadiray. xogayaha guud ee golaha guurtida Somaliland Garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi ayaa mudanayaasha u sharaxay habraaca iyo hanaanka loo marayo kalfadhiga gaarka ah. baxday ma jirto koorka golaha fadhiya waa 74 mudane 8 mudane ayaa maqan koorku waa 75 mudane waxaynu bilaabaynaa maanta jadihii inoo yaalay oo kalfadhigii aan caadiga ahayn inaynu baafinay in maanta la qabanayo kaasoo inoogu socon doona si habsami leh inagoo gudoomiye Saleebaan inoo furi doono si aynu akhri doono warqadiisa istiqaalada hadii Ilaahay dhaa waa jada sidoo noqonayaan doodina way laba furin hor jadaan idin sheegayaan saydaan ugu khalkhalin hadhow tooni khudbadu inoo furi doona markuu furo ujeedadii kula keenu inoo sheegi doona afkaro uu inoo la hadli doona khudbad yar oo sheega briefingkiisa qoraalkiisana waynu akhri doonaa intaa kadib waxa gudoominta la wareegi doona gudoomiye ku xigeenka koobaad oo hawsha wadi doona hadii Ilaahay dhaa markaas daa ula socda saasayna hawsha ku wadaynaa. gudoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa markaas si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu baneeyay xilkii gudoomiyenimada golaha maanta wanaagii hore aan uga bartay baan haddana maantana rajaynayaa inaan ka helo sida ay ogtihiinba meesha dee daabaan gaadhay waa daalay haddii maskaxdii joogtana muruqii baa maqanoo tallaabadeedu way gaabanta marka intaan xusuustuna tegin waxaan isleeyahay aad ka gaadhsiisid odayaal waxaan idinka codsanaya wanaaggii hore inay ugu dartaan inaydin maanta ay fasaxdaan oo isii daysaan istiqaaladiina shahaadiina waan saxeexayaa saxaafaddu arkaysa hortooda ku saxeexa بقلب أنا إيه waxaana gudoominta fadhiga la wareegay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida mudane Axmed Cabdi Shide. muhiimadda aynu sugu neelina waa la sheegay xeer hoosaadka iyo dastuurkeennana baa loo raacay muhiimadda aynu sugu nimi waxa weeye gudoomiyaheenii qaaliga ahaa ee muddada badan soo hogaaminayay intaas kadib xogayuhu wuxuu mudanayaasha u akhriyay waraaqda iscasilaadda waxaana golaha cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen iscasilaad banayntii xilka iyo xubinnimada qoraalka uu saxeexay gudoomiyuhu ee golaha u soo gudbiyay shirgudoonkaba wuxuu u qoran yahay sidan ku shirgudoonka golaha guurtida ku mudanayaasha dhammaan mudanayaasha golaha guurtida ujeedo banaynta xilka gudoomiyenimo iyo xubinnimo ee golaha guurtida gudoomiyuhu israaciyay inuu xilkii iyo xubinnimadiiba uu israaciyo mudanayaal anigoo ah gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland xilkaas aad ii doorateenna 28 August 2004 ilaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha 7 2026 muddada xilka aan idin hayay
oo golaha kala soo dabaashay marxalado badan waayo badan arrimo badan oo dhinaca nabadgelyada iyo arrimaha siyaasadda iyo dhammaan geedi socodka Somaliland halka ay ku soo gaadhay arrimaha nabadda maamulka iyo wadajirkaba aan ku soo holqaatay waxaan ku waday hawsha dulqaad iyo odaytinimo anoo idinka rajaynaya mudanayaal inaad sidaa shaqada u soo waday isugu duubnaan doontaan hawshiinana u wadi doontaan mudanayaal anoo idin jecel kana mahadnaqaya sidii aad ila shaqayseen muddadii aan xilkaa idin hayay haddaad tihiin mudanayaasha golaha duurtida golaha wakiilada iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland haddaba mudanayaal asbaabta aan iscasilaadan idinku soo gudbiyey oo ah daadayda oo weynaatay awgeed anigoo u turay golaha guurtida qarankayga iyo naftaydaba sidaa darteed mudanayaal waxaan idinka codsanayaa inaad iga aqbashaan istiqaaladda aan idiin soo gudbiyey ee aan kaga tegayo xilka guddoomiyenimo iyo xubinimada golaha guurtidaba gebagabadii mudanayaal waxaan aad idinka niyad samahay inaad iga aqbali doontaan codsigayga wabilaahi tawfiiq anigu waxaan ku jiraa ragga aan ku faraxsanayn inuu tago laakiin duruufaha yiminagu waa loo tixgelinayaa sidaa daraadeed waxaanu saaka tixgelin doonaa guddoomiyahan inta badan la soo shaqaynayay inaynu u tixgelino asilaadiisa oo inaga codsaday sidaa daraadeed anigoo procedure-ka fulinaya 75 mudanaha fadhiya codkaynu qaadaynaa dhaqdhaqaaqana waa la yaraynayaa mudanayaasha oo gol iscasilaada guddoomiyaha golaha guurtida uu soo gudbiyay mudanayaasha golaha guurtida gacanta ha taageen تاجر أبو مبهر دجية يا ديدن يا كاموسي قاموس ملح لبد يا ديدي يا كاموسي هبية لبدا سقال iyo 60 baa ogolaaday istiqaaladii gudoomiyuhu soo gudbiyay golaha labana waa diiday labana waa ka aamustay anna ma codayn sidaas ay ansax ku noqotay istiqaaladii gudoomiyuhu golaha ka qabalay mudanayaal aad baa u mahadsantiin halka waxay noogu dhamaaday stoptii hore ee aanu kaga aqbalay istiqaaladda حاج عبد الرحمن فريسو markii intaasi soo dhamaatay golaha ayaa u gudbay doorashada guddoomiyaha cusub tartanka waxaa ku loolamayay 3 mudane oo kala ahaa xildhibaan Muuse Xaaji Cabdi Ducaale xildhibaan Sahal Idla Dirir iyo xildhibaan Ismaaciil Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed iyaga oo ay laba xildhibaan ay tanaasuleen xildhibaan Sahal Idla Dirir iyo xildhibaan Ismaaciil Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan iyadoo mudanayaashuna codkooda si toos ah ugu doorteen guddoomiyaha cusub mudane Muuse Xaaji Cabdi Ducaale codayntiina waxa ay u dhacday sida tan aad iyo aad buu mahadsan yahay xogayuhu waxaynu codka u kala qaadaynaa siday u soo kala horeeyeen waxa ugu horeeya Muuse Xaaji Cabdi Ducaale بسم الله الرحمن الرحيم sida aan si fiiga ku soo gudbiyay waxaan u taaganahay oo aan ka noqonin oo aan doonayaa in codkana la igu siiyo musharaxnimadan codsigiisa idin soo gudbiyay wabillahi tawfiiq mudanayaasha golaha iyo shirgudoonka iyo shaqaalaha iyo saxaafadda soo xaadirtay maanta ee faraha badan la qadiyadan darteed iyo marti sharafta intaba waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta kadib
munaasabadani waa munaasabad aad iyo aad runtii u qaaliya ujeedadeedana waynu wadaagsoonnahay waa marka koowaad guddoomiyahana waxaan leeyahay hambalyo iyo salaan iyo ducaan sii faraya qadiyadda musharaxnimada maanta ee si figiisa aan hore u dhiibannay anigu ka musharax ahaan haddaan ahay xildhibaan sahal iidla dirir ama suldaan sahal iidla dirir haddii aan ahay waxa aan uga tanaasulay saaxiibkay muuse xaaji cabdi ducaale waxaan intaa ku darayaa saaxiibadayda qaaliga ee halkan fadhiya ee codka ii ballan qaaday ee taageersan ee doonaya inay codkay siiyaan inay siiyaan saaxiibkay muuse xaaji cabdi ducaale oo uu ugu horeeyo saaxiibadayda ay taageersanaayay soo dhisay mudane guddoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay sida fiican ee gudaadiinayso anigoo ah musharax taagan jagada guddoomiyaha golaha guurtida waxaan soo jeedinayaa oon codsanaynaa in muddada doorashada iyo muddada iscasilaadda laba waqti laga kala dhigo taasi oo sharci ah umay dhicin hore umay dhicin in maalin keliya guddoomiyuhuna iscasilo xubintuna iscasisho isla waqtigiina la yidhaahdo ha la doorto oo guddoomiye cusub ha la doorto murashaxiintu waxay u baahan yihiin waqti bay u baahan yihiin ay hawshooda ku soo qabsadaan sharciguna u bannaynayo codsigaasaan guddoomiye kaa codsanay anigoo ah suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan murashax u ahaa guddoomiyaha golaha guurtida waxaan ka tanaasulayaa mar haddii aan xuquuqdaydii waayey inaan u tartamo waxaanan raacsanahay wixii golahu doorto muuse xaaji cabdi haddii la dooranayo waan uga tanaasulay aad iyo aad baad umahadsantahay koranku waa 75 waxaan kaloo u mahadnaqayaa labadii musharax suldaan ismaaciil iyo sahal iidla diriir aad baa u mahadsantihiin qarankaa idin xusi doona waxaan uga gudbi doonaa istobka labaad oo odhanaysa mudanaha u tartamaya guddoomiyaha golaha guurtida magaciisuna yahay muuse xaaji cabdi ducaale ciddii oo goli gacantaa taagto dejiya yaa diidan 73 mudane ayaa ogolaaday inuu muuse xaaji cabdi ducaale noqdo guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland saasuuna ku ansaxay aad iyo aad xagga sare soo fuul idinkuna waa fadhiyaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin fadhiya maya halkan iska fadhiisay waa kursi fadhi fadhiiso aad baad u mahadsantihiin mudanayaal sida sharafta leh iyo milgaha leh aad hawsha u dhegaysateen una daadihinnay haddana waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha cusub siduu kelmaddiisa mahadnaqa ugu jeediyo golaha mudane guddoomiye ku soo dhawow xil culus mas-uuliyad adag hawlkar iyo xidmadana ku sugaya lagaana filayo inaad halkii ka sii waddo aad iyo aad ku soo dhawow الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبان هذا شرفت له وهذه أدبان دي سلام يا وعن كم هاد علينا يا ورد مركب ورد هاد كواد وحيسكله إله قادر كه إنه نعمية قبضة سوكين كاني دمانتين نسكت دوراني إله بقى مهزكله مهد الله بعد وحاله حلبان هذا حلكة إجمدي عقتين آديات بان ومهد علينا محد صدحات وحيسكله قدوميه إني سليمان محمود آدن مدة دير قولان إنه قاميني
dalkana tacab badan gashaday ilaahay ha ka abaalmariyo isagana waynu wada mahad celinaynaa dhammaanteenba mahadda saddexaad waxaanu u celinaynaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaheeda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi aad iyo aad baan mahaddaas u celinaynaa mahaddaas baan ku soo koobayaa iminka saacadatan halkaas baan leeyahay dhammaanna waxaan kala u mahad celinaynaa shirguddoonka inoo daadihinayay iyo shaqaalaha iyo saxaafadda dhammaantoodba iyo ciddii kale ee soo camirtay golaheennana soo qurxisay iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wajazaakum allahu alkhayr وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dardaaran kaana inay iga maqashaan waa ku mahadsantiis golaha waxaan ugu mahadnaqaya maaha uun istiqaaladda iga aqbaleene waxaan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee muddadii aan xilka ahay ay la shaqaysay ilaahun baa laga helaa taas oo kale si daacada oo xilkasa oo xanaana baa ila shaqaysay aad baan idinku mahadinay inay iga aqbasheenna iyo taagtayda aragteeno iwa iyadana waa ku mahadsantii waxaa intaa ii raaceen dhowr eray golaha mahadnaqiisa ka sokow iyaroo dardaaran ah oo shirguddoonka iyo idinkaba aan jeclahay inaan idiin jeediyo inay iga oggolaataan golaha wakiilada ee aynu walaalahana ahayn anigu deedi ka tegi ay walaalaha tiib golahaasu waxaan ka odhanayaa waxaad ogtihiin ba idiin sheegay aan sheegaye golahaa wada shaqayn wanaagsan oo joogtaa inay yeelataan waayo hawshiinu xalaaloobi mayso haddii aydinaan wada shaqayn labada golaha oo weliba si joogta shirguddoonka inaydin labada gole raggana xidhiidhisaan labada golena wada shaqayn fiican ay yeeshaanoo sidaa qaranka loogu adeego waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa sida wanaagsan ii soo dhoweeyey iga aqbalay inaan xilka ka fadhiisto aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana waa dowladdii dalka shaqayn bay idinku leeyihin doorasho ma leh sidaa walba aynu ula shaqayn jirnay waan hubaa inaa ula shaqaynaysaan taana waxaan leeyahay si xoogla ha loola shaqeeyo si xoogla dowladda ha loola shaqeeyo waxaan ku darayaa niman halkan aniga eerbushi jiray oo nafta isugu keenay nimankan hortayda fadhiya ee saxaafadda nimankaa haaro badan baana kala gaadhay iyagoo isaamaxayna waxaasaan leeyahay xil weyn bay qaranka u hayaan qaranka xil weyn bay u hayaan ma jeclin qodqodkii iyo imtixaan bay inagu kolle ku haynayaan qolada talaalka shirguddoon inay isu dul yeelataan oo waxay rabaan uun waxa weeye si hawshiinu idinku najaxdo bay waxa u ordayaan inaydin warkana idinku siisaane mid yacni cooda aanay suuqa ka helin kiina xaqiiqadii kiina ha kaga bakhaylina sii idinkuna sidaa aydin qodqodka hadaynina
mid cusub iyo mid joogi jirayba iyo dowlad midna sidaasuunbaa waxa weeye hadba waa nagu baraarujinaysa xilka iyagu wuxuu yahay ayaa nagu baraarujinaysaa dee ha joojidina waayahay aada iyo aad baa u mahadsantihiin maanta intaa waan leeyahay wax kaloo odhan maayo golaha waxaan ugu celinaya dee waa wada joognaa kala tegi mayno dal shisheeyana u baxsan haddaan meel gaadhane waa caafimaadkaaga wagashtaa mar walba laakiin halka weeye deegaankaygu marba waa wada joognaa waa kala war qaadanay fadhigii maanta wuxuu ahaa mid si weyn loo adkeeyey amnigiisa waxaa goobta ku sugnaa saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenka qaybta galbeedka Hargeysa taliyaha ilaalada baarlamaanka ciidamada ilaalada xarunta baarlamaanka iyo ciidamo kale oo dheeraad sidoo kale hoolka golaha waxa buuxiyay marti sharaf tiro badan oo goobjoog u ahayd munaasabada iyo geedi socodka doorashada hoggaanka cusub ee golaha guurtida Somaliland